waxaan maanta ula shaqo u tagay deegaanka dalxiiska halkaas oo ay ku yaalaan ceelasha laga soo dhaamiyo biyaha magaalada laga isticmaalo waa goob dacasho ku haysa badweynta Hindiya waxaana dusha sare ay ka tahay xeebta Kibuuro ee magaalada Kismaayo halkan waxaa ka jirta shaqo culus ceelasha qaarkood laba qof iyo ka badan ayaa biyaha ka soo saara haddaba noocyada ceelasha iyo ilaha ay kala leeyihiin waxay noo sharaxaya qaar ka mid ah hawlwadeennada ceelasha ما نخفكي أو معنا أو باورك وتأصيل مدان صدو وهذا ميو شغالة مرق مالتذا مرق مالتذا وحيكو داميان شنبغول آجي آجي شنبغول مركي كو داميان نكي إلك إسكاله حكو قدنا يكون شيلين ده وهاي يالو شنبغول إلك إسكاله شنبغول نهاي يالو إن إسكاله إن نكي أو إن هم مرق مالتذا وياي halkan ceelashu ay ku yeelaan waa meel dabayl badan oo buur dhaladeed oo hadra badii dacasho ku haysa marka bal nadaafada biyaha iyo qaabka uga taxadirtaan nodo maalin walba todobaadkii eelka waxaan u maleeyaa todobaadkii babaad baa laga soo bixiyaa baadkii laga soo bixiyo markii baad laga soo bixiyo eelka biyo keena haye baadkaaseeto maalintii haddii to laba todobaad haddii baad laga soo bixinin eelka waa ewir kan hadda saan u jeedaan toddobaad horaan baad ka bixinay toddobaadkii labaad waa kan hadda waa dhurdhur haddii marka baadkaas badan biyihii ceelku yareynaya biyahaas wuxuu yareenaya biyuhu yareenaya qaarkood waxa ka imaanaya baadka kor uu ka imaanaya haddii ceelkana hoos waxa ku jiro tuubada koowaad tuubada labaad waxa u dhaxayso loorara u dhaxeeyo wadaanta haddii hal mar loor soo qabato banaanka loorkaas banaanka uu soo baxo ilba ka soo fakanayso oo baad ah eelku daboolaya biilaan baa ku dhacayso meeqa il weey hadda ceelka eelka waxa waaye waa 8 il laba il badda xageeda ay jirtaa labadaas il waa la xiraaya bataatama waxa loo xiraaya waan dhanaan waxa loo sii deenaya qorax u dhac oo 4 il ah iyo waxa dhinac koonfur oo laba ilaalo fasaxaya bas marka dhinacan qorax u dhac iyo koonfur ilaha ah waa macaan ilaha oo badda ka imaadaan ulaasay هيا أحمد وجاري هاي بابا حد النجور أنت ميقا جريجان بقال كنا جاري أفر فوستي برا أول أنت ميقا جريجان وي أفر فوستي وفرتن شنعك فرتن شنعك وياي بل نجور حافظة مقالة الجيسان والله كل بس عادي daawadayaal iyadoo aynu ognahay in magaalada Kismaayo ay si aad ugu baahan tahay biyo gelin haddana ahmiyadda ay biyuhu leeyihiin waxay noo sharaxaya Xasan Maxamuud Qorane oo ah khabiir arrimaha deegaanka kulli biyuhu waa la dhabarta nolosha wax walba oo adduunka jira ama nool ama shaqeeya waxay ku shaqeeyaan biyo waxaana muhiim u ah biyaha وتولاه ليه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون مركا فائدة بيها ليهين هل أرين أما الله أما صدق كمسوا كوبي كرنا وحول بق النول وأدون كدوشي سسارا وحكوش قيام بيو حتى تصير سقط بني آدم كتطبعات كوي بيو يقف كإنسان كبني آدم كهدوس بيع بين أما يسجل كيس بيها كرمضان نرش سوى دمانسا صادرت وح نرش أدون كوبي كل سنة هدي بيها رمضان نرش سوى دمانسا taas waxa ka dhigaysaa marka biyaha waxa ugu muhiimsan ee aan haysano waxa ugu muhiimsan ay tahay in la ilaaliyo waxa ugu muhiimsan ee waajib tahay qof walba inuu ka taxadaro sidii loo heli lahaa caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda iyo fayaqabkooda loogu dadaali lahaa sidii loo horumarin lahaa iyo sidii mujtamaca ay u gaari lahaayeen biyo caafimaad qaba waad ogtahay maanta dagaalada adduunka intooda badan ama dagaalada soo socda waxa loo durasayaa in ay ku saabsanaan doonaan biyo dawladuhu maanta biyo waxay u yihiin iyo ilaalinta siyaasadda biyaha laf dhabar horta biyuhu waa laba qaybood inta badan waa biyo dhulka korkiisa ama oogada dhulka yaala iyo biyo gudaha ku jira mid walbana wuxuu leeyahay qaab ilaalin gaar ah haddaan soo qaadano maanta biyaha dhulka hoostiisa laga helo oo maanta aan ka magaalada Kismaayo boqolkiiba boqol way ka cabaan waa ahna runtii marka laga hadlo biyaha ugu muhiimsan ee dadku si guud isticmaalaan
dadku waxa laga yaabaa maanta markii la dhaho biyo in dadku u arkaan biyaha dhulka oogadiisa yaal inay yihiin biyaha ugu badan ama biyaha la faa'iideysto ama la isticmaalo taas oo sax ahayn biyo badan dhulka dulshiisa way yaalaan dhulka aan ku noolahayna biyo u badan yahay laakiin biyahaas waxay u badan yihiin badna laga macabo in ay marto mooyaan barnaamij iyo dib u sifayn iyo waxa marto mooyaan marka biyaha ugu muhiimsan ee inaga dadka aan cabno boqolkiiba 50 ka badan bini'aadamku ictimaado boqolkiiba 40 ka badan warshadaha loo isticmaalo boqolkiiba 20 ka badan beeraha loo isticmaalo waxaan caafimaadkooda ku ilaalin karnaa dhowrsi horta in la takoobaad waxa weeye in la taabageliyo qawaaniinta ilaalinaysa deegaanka iyo bii'ada qaanuunkaas ahaado qaanuun u yaala adduunka ha ahaado qaanuun u yaala gobol sida geeska Afrika kala bariga Afrika aan dhahno qaanuun u yaala dal iyo qaanuun u yaala deegaan marka qawaaniintaas in dadka la baro la taabageliyo la dhaqan geliyo waxay koow ka tahay in biyuhu ay caafimaad helaan ama fayadhowrkooda aan ilaalino sidoo kale intii aan ku guda jiray u kuurgelidda ilaha muhiimka ah ee magaalada Kismaayo ay biyo ahaan ku tiirsan tahay waxaan tagnay xarunta warshada biyaha ee Riyaaq waa kan mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda oo ii sharaxaya qaybaha kala duwan ee hawsha soo saaridda biyaha ee warshada wallahi hawshan in mudada aan wadnay marka hore caagadaha sida arkaysaan waxay soo maraan mashiinay soo maraan kadibna markay kululaadaan waxa la sii geliyaa mashiin kala bixiyo ayagoo dhan markooda hore aragtooda waa kuwan saan ay u eegayaan kuwan marka hore waa kuwan kadib waxa la gelinayaa mashiin baa la gelinayaa kadibna mashiinkii uu aariyeenayaa waxay noqonayaan sidan qajaclaan bay noqonayaan gabagabadii mulkiilaha ahna agaasimaha warshada biyaha Riyaaq ayaan wax ka weydiiyay hawsha shaqo ee halkan ka socota والله الحمد لله وحاويان شركتان magaalada horta waxaan nimi annagoo sahan ah 2013 waxaan u nimi inaan bal wixii magaalada aan ka qabsan karno aan u nimi markaan nimi waxaan aragnay inay jirto baahi biyo ee magaalada biyo aan lahayn biyaha Dubai laga keenayo markii baan ku fikirnay inaan bal hawshan ku dhaqaaqno hawl baaxad ayay ahayd بعد تعب وشدة أنت أذو دب وحي لما ريبو وكقوليسني وحاويا شركة أيام سميني وشدة ويشقيس هاد وحاويا وإلا إيو وحنفرنا يصير رسمي أو صار كانوا بلاوني بشي جنايو كودي لما كن شنيتوان مقالة كسماية عاصمة كوميلغاركا ee dawladda Jubbaland waxay si aad ugu baahan tahay biyo gelin degdega taas oo looga fadhiyo ganacsatada iyo qurba joogta deegaanka qaybna ka qaadanaysa dib u dhiska iyo horumarada magaalada Maxamed Xasan Xiis Jubbaland TV magaalada Kismaayo